الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي بوان السلامنا بعد السلام waxaan jecelahay in sir dhageysano si aan isku maqalno bas buuq badan baa jira caawa halka waxaan isku nimid barnaamij caways oo aynu ugu talagalnay hal abuuro kamida hal abuurada dalka ugu foolaadsan halka waxay noo taagay fanaaniinteenu caawa sugaynay hal abuuradii iyo marti sharaftii barnaamijkani waxa uu daaran yahay عود أما وحلا يقانا عودك يولي السجان اسكو دفن برنامج كان ما عمركي كواده إنه قبلنا وحنا سواء قاسيته بهذا حلابور كي قرال كي هالقر لكن هذا شدي واحد سنة يعني هدي عاوزين لسكوا مقلوبات فنانين تنوع حناقي والله دي حلابور كنوع حناقي هالقر نوع حناقي ضغطنا إن أنا هم دبر ده عدوني بقى أيا صوبي دوتا مركب واحد لا يرتاح يسنو إمك هو حي مدرسة وين نافرت هاي أنت أنا بحث كسر دوي واحد سر دوينا يا هلا أبو عبد الرحيم صديق أو إلا السعودان وضنا كابه أو فنان كيا أو إلا السعودان هلا أبو رضا دم سر دوينا يا أو إلا السعودان عبد الرحمن خلص مركا هلا أبو رضا صعب بدل الله كراعه وهلو يستاجو هذا برنامج سواء ستابة وسواء طبقة بس حفلة قف كبهذا لو واحد الله وعسود ويدونا محمد بن حسن أو كما قاعدين نقعد سود وبالله يسعى بدنا الله يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أيرس نجسنا هذه أنا مسنون اسمك لنا بليز قفوا نقفها موسيقى فلورت النفط هذا مرة قرية موسيقى بليز بهذا هالأبور كي قرالك وهالقر ومقعد عاوان كوهلا يو وحلا أساسي لابد يكون يصدق طبعا كي بعد هالقر وحلقوا أساسي هرقيسة وحين تبدن كشقيسة هرقيسة يدو قبل هذا غير كون برنامج شكو قبتها هالقر waxay qabataa barnaamijkan caawa aynu joogno iyo barnaamijyo kale oo la mid ah baahda halabuurka ee qoraalka hal qorsida magaceedu ka turjumayo inta badan waxay qabataa barnaamijyada la tacalluqa halabuurka qoraalka bandhiga buugaagta qabanqaabinta kulamada suugaanta qabanqaabinta madalaha caweyska ee noocan oo kale ah baahda hal qor waxay qabataa inta badan kulamada cilmi aqoon isweydaarsiga tartanada suugaanta lagu tartamayo iyo kuwa qoraalka lagu tartamayo baahda waxa kale oo ay qabataa tababarada sida akhriska tababarka qoraalka tababarka suugaanta tababarka farshaxanka iyo tababaro kale oo la halmaala sida buugta iyo waxyaalaha loo tafatiro baahda hal qor markasta waxay u taagan tahay dhiirigelinta halabuurka iyo qoraaga da'da yar ee soo kacaya bahdu markasta waxay idin leedahay waa bahdiini annagu waxaan u taaganahay mar walba inaanu dhiirigelno afka dhaqanka iyo hidaha dhaxalka u leedahay ummadda Soomaaliyeed waxaynu caawa halkan marti ugu nahay hal abuurada kala ah Cabdiraxiin Sidiiq Heelo iyo Cabdiraxmaan Haldis oo inala wadaagi doona suugaantooda nagiib wadna kaabe oo aad garanaysaan isna wuxuu inala wadaagi doonaa heesihiisii waxaan jeclaan lahaa inaynu ku dhageysano siniyad samiya aamusnaanta inaynu ku dadaalno qof walbana halkiisa uu fadhiyo waxaan idin leeyahay mar kasta ku soo dhawaada bahda hal qor bahdu waa bahdiini leed kama laha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وهاجاك واحد سمين دونا برنامج كده أساسي لو فريء واحد سود وين دونا إن شاء الله وأن مركب وهرم مسرح كيني دونا فنان أكتينا قالك وعانا ونجيب ودنا كابه وحنا قاعد دونا مركب وهره هس كلاسيكا لكن ده سردك أو تمرك وهره أنا مسلم هل كان نظام باكتيرا عم بحفلة النظام بينو تلقى الله نظام كاسوح ويان إن الله جالسين إن أنا صعب كلا بدين إن أنا قيلة الله بدين سوي نسكوا هذا مقالة عد كدمي قالسين خلاص
horta dhammaan aad iyo aad baan islaamayaa dhammaan bahda hal qor aad ayaan idin salaamayaa bal insha Allah taala music life ayaynu gali doonaa insha Allah taala waxaan halkan ka salaamayaa kale ayaan Axmed Jaamac oo ah fanaanad qaran oo aad iyo aad u jecelahay ayaan Axmed Jaamac ayaan aad u salaamayaa iyadana
sheegadka miyo afkuna ka magaya marba midhaamu sheegadka miyo afkuna ka magaya mahadhaga kalgacal naftaydu inay mogate mahadhaga kalgacal naftayda inay mogate ma muujiye jacaylka waan maldahaya naftayda waan ma weeliya ma muujiye jacaylka waan maldahaya naftayda waan ma weeliya ma weeliya kaabe saca badan lagu sii sagootiyo fanaankaas qiimaha badan waqti weyn oo soo siiyay waxaan noo casuunaa isaguna ay qabar suugaani oo isaguna noo soo socda isaga iyo qaacigii isagana saca badan isagoo maqan loo garaacay insha Allah waxay noo iman doonaan qoladaas laakiin masruxu uu furo yahay waxa iman doona haddaynu saa isku dhageysanadii su'aaluhu xaqiina iman doonaan heesuhu xaqiina soo wareegi doonaan maansooyinkii baynu haddaba bilaabaynaa barnaamij kale baa jira oo inagu dhex jira oo kooban oo 5 mirra waxa jira masraxiyadaad idin soo wado heestii taswiirtaada dayaxa oo caawa wax kale aan idinka soo wado ayana soo socota hayga degdegina barnaamijka xaqii waxaan wareegaynaa suugaanta hal abuurada hal dhageysto insha Allah iyo taariikhdooda dhinacayga midig imika waxa fadhiya Cabdiraxiin Sidiiq Cabdilaahi oo loo yaqaan Cabdiraxiin Heelo waana hal abuur oo dibada suugaantiisa aragteen وأنك هسه كوسو عدسني السنة تصوير تاع ضيع عاوني بيقولي تصوير تاع سولي وكل دي قاري هسه الله صور عليه وسيانا كم مقناني هسه عاون لكم صديق ما يضرب عشتها وريا رالي ما كتر عبر على قاعد أبو يقاهاني ويزور وين أنا كاسنا هذه إلهي ذكروا مرة واحد زور وين أبو هريرة عبد الرحيم صديق والله محمد بن شغله دو سلام يا أبو هريا هو ما سيحي ونقول صوت كومين ودين مع العليابة لكن حاجة تمر قرارنا إن شاء الله عبد الرحمن أحمد عبد الله عبد الرحمن أحمد عمر هالمان هذا الكوميتشري أو كم قاعدين عبد الرحمن هالليس أيوان السكن اللي بالشدة محله سمعت صوت جميل عيال اسكول كامر كلا هذا اللي رادوا كوينا حاجة دمبو نجا مسه عيال سوفي يراي كلام مصر دادي يراي كلام مصر عن سبق الله
maansada idinla wadaagaya waxaa la yidhaahdaa hiilka nolosha la yidhaahdaa waxay ka hadlaysaa dumarkay ka hadlaysaa ama ismaqlina waa balay ku yara qabowno yar maasada ay ku qabowno hiba waa dhallaannimo gurji aad haleeshee halalaynta maansada halku waa halkayga halalaba higaadshaha erayada hannaan kale habka laysu wada sugo dareenhaga ayaa ugu neefraqayso habhaabakaygiyo xalay qashadaydii keligoodka runtiya waxaan haadha maansada furay garashada ilaah garashada dabiir dhacay hubsasana garaad jecel hidilana dhowaan raba shishawo anagiisoo ku hurdoobi maaya jiibtada horyeelka yeedheeda hugun kale dhegta lala hadlaayay yeedheeda hugun kale ka haray durtida oo dhegta lala hadlaayay hawlkaaga soo culo ku hagaago sharaf lagu habeeyaa lagu horumaraya busharkeeda aadka inti kala baqaysho hagateenu wadanahay waxse taa ka hoos maray oo habeenadeediiyo habowgeedu liid yahay hiddahana qallooc ku ah halka aan hormuudnimo lagu hiigsan karin ee ku hadaaqa beenta ah wixii hadhay shalay iyo daraad bay habboonayd nafta looga halab dhigo huubaha gilgilidda ammahdoo lagu hufaayo kuwii hebel ahaantay noloshayda soo hagay ma hilmaami karaya horraadkan ka dheefiyo hooyadaydii iyo habeendhaxaysii hablayla dhashaa jira harharyada kaliilahaasa ku neebla hoos gala dhirta keeda hamashkale hanfigiiyo kulaylaha banka ruuxa waartadahe dawa isnacaane sida hadhac qaboobaa hawo laga helaayo dumar waa halbowlaha noloshaba habayn kara inkastoo hayaanfooge hanti loo uruursado inkastoo ku-hirashada loo wada hamuun qabo inkastoo hadhkooda iyo gurihooyashadeedaba haween lagu xisaabtamo wuxuu yidhi ninkii helay hubka dhaxanta celiyiyo dumar waa hugaygo ilbahooda kulul baan hubiyaa jirkayga hubse waan ka hajiray habeenada qabarka badan jirkayga bustaad u tahay dharaaraha bacad ku jiro wadnaha baraf baad u tahay halkaas waa annaga ku hadlaya cabdiraxmaan handis oo jixdaa qiimaha badan laga wadaagay hadday isku badan isku dhaweysado barnaamijkuna sidaasuu cuudkiina inoo soo socdaa caawa loo kala dareeri maayo bay la tahay dee baada hal qorna nin qaar baa cabanaya oo soo gudbinaya waan hadha war iskaba joojinay hadday sida buuqa ogtooda waan cabdiraxmaan bal dadka ku soo dhawow iyo tixdadooda الرحمن الرحيم ترى ما يسمك لينا يا هي هذا ما لي أرك يا هي ورياره هنا ياره ما سدان إذن لو ذاك دونا وحلا يراه مجي عيد دلعه وحي كهد ليسا أما واحد ليسا وقبل دليرة نرسى وحي كلا هيد هدفية بدن نرسى وحي كلا هيد هدفية بدن وحي تعليد عرورة يدشوا يا أبدي حبارته يا قري يا نرى القروح بدن ويدو هاي صورتي وحي سميسي تعين إن dhibaatada dhacday baa ahayd waxa ku dhacay qadar jab jacaylkii ay samaysay ama ninkii baa khiyaamay gabadhii ilmahan xalaal ahayn bay qaatay waxay ka sheekaynaysaa nolosheedii quruxda badnayd waxay leedahay anigu waxaan jeclahay inaan caruur dhalo waxaan jeclahay inaan nolol noocaasa ku noolaado waxay ka warramaysaa duruufihiisa uu wajahay waxay ka warramaysaa noloshii quruxda badneed ay ku hamiyi jirtay iyo maanta nolosheedu sida ay tahay in dumarka la waaniyaa waa mid nagu waajiba tusaale ahaan waxa dhacay gabadh baa u timi inan baa u timi hooyadeed waxay ku tiri markaa hooyo waxaan doonayaa inaad sinada ii fasaxdo hooyadeed lama yaabina waxay ku tiri haye anaan kuu fasixi doona ee waxaad samaysaa hal shuruud
inantii iyadoo faraxsan bay tiri waan ka soo baxayaa shuruudda inantii waxay ku tiri hooyadeed waxaad 3 cisho seexataa guriga boqorka inoo taliya hortiisa maalintii koowaad bay deetana tagtay way seexatay waxa loo sheegay boqorkii markaas la yiri boqor gurigan qasriga waxa hor hurudaa inan u soo baxay inantii buu eegay intuu qaaday buu gurigoodii geeyay markaasay dadna tiri hooyayaa ku waday markaasay tiri boqorkii baa soo kaxeeyay maalintii labaad ayay ku tiri ku noqo way ku noqotay oo bartii albaabkay seexatay markaasay ku tiri markaas haddana boqorkii loo sheegay boqorkii intuu waxoogaa yar cadhooday buu yiri bal inta qaada oo gurigoodii geeya wasiiradii baa qaaday oo gurigii bay geeyeen markaasay ku tiri hooyayaa maantana ku soo kaxeeyay waxay tiri maanta wasiiradii hebel iyo hebel baa soo kaxeeyay maalin saddexaadii bay ku noqoto markaas la yiri boqor inantii baa haddana halkii hurudaa eriya buu yiri intaydu kaxaysaan inta gabadhii la soo uleeyay ayaa la soo eriyay markaasay tiri inantii moora jabsan baa hooyadeed u timid markaasay tiri hooyo maantana yaa ku soo kaxeeyay waxay ku tiri maanta cidna waaba la soo eriyay waxay uga socotay markaa hooyadeed sheekada xikmadda badan waxay ku tiri hooyo haddaa doonaysa inaan ku fasaxo maalinta koowaad waxa ka ama kula tuman doona dadka boqorrada ah maalinta labaadna dadka lacagta leh iyo wasiirada maalinta saddexaadna adiga u ceeboobay baa sidaa lagu soo eri doonaa runtii dawaa dhibaato weyn caarkeena inaynu ilaalinaana waa mid inagu waajibaa gabadhaasi iyadu waxay ka warramaysaa noloshii ay lahayd ee u sawirnayd iyo nolosha ay maanta ku sugan tahay waxay maansadu ku bilaabantay si wanaagsan ma lay maqlayaa han iyo dhaxdin baan lahaa inaan dhisto nolol qurxoon aroos dhigto waan jeclaa han iyo dhaxdin baan lahaa inaan dhisto nolol qurxoon aroos dhigto waan jeclaa dhiggii kaan kala baxaa hankaygii hoos u dhigay jacaylkaan ku dhiiradaa dhibkiiyo hadimaday baday dhadaan hogol mooday roob anaa dhalinteed ku lumay dhurwaabaan hilib ku raray waxaan dhugcay doonistii markuu dhaartuu dafiray ninkii iga dhalay ilmo waxaan dhugcay doonistii markuu dhaartuu dafiray ninkii iga dhalay ilmo markay dhacantay xantii warkii oodaha ka dhacay intay idhibeen bulshadu dhigaygu i quursadeen maxay dhagaxii gurteen dhalaan dile laygu yidhi ninkii dhigay eelka baas caqliga dhiiranaanta faray qofkii dhibbanaa haddana dadkii dhaawaca ku yidhi ha dhaca hidihiinna baray siday dadku ii dhibeen dharaara maxaan u kacay inaan dhinto oo isdilo siday dadku ii dhibeen dharaara maxaan u kacay inaan dhinto oo isdilo haddaan dherer joog lahaa haddaan dheeh wacan lahaa waxay dadku dhaygagaan sidaan isku dhalan bedelay xurmiya dhaqantii lahayd han iyo dhaxdintii lahayd ninkii dhagrayow ha sugin dhabayl iyo gaari dumar anigu 2 goor dhintoo ka dhacay noloshii ifkee haweenka ragow ha dhibin ka dhowra waxaan eegay anigu 2 goor dhintoo ka dhacay noloshii ifkee haweenka ragow ha dhibin ka dhowra waxaan eegay cabdiraxiin sidiid anigu 2 goor dhintoo ka dhacay noloshii ifkee haweenka ragow ha dhibin bad intaas daarakaas ku soo gabagabaysay barnaamijku markuu halka inoo marayo saa inoogu socdo waxa barnaamijka qaybiga nagala ah dhalinyaro bahda hal-abuurka qoraalka hal qoraay u dhameysay tababarkaas oo ku saabsanaa qoraalka farshaxanka iyo suugaanta dhalinyaradaas waxay isku jireen wiilal iyo gabdhaba dhamaantood way nala fadhiyaan insha Allah inta aan dhalinyarada stage ku soo dhaweyn qoladii kale ee fanaaniinta hay'adda iyaguna soo dhawaana si ka hadlayaan soo socdaana soo dhaweyn waxaan soo dhaweyn doonaa Sakariya Cabdixakiin Maxamed oo ku magac dheer Sakariya Miido si inooga warramo tababarkaas kelmad yar oo kooban inoo yiraahdo heesihii iyo 2 tixood bay dabadna ku cisho doonaa insha Allah.
dad kalgacaliyo dhammaan fuushadooya waxaan dib la qaadaynaa barnaamij kasta oo la qabanayo inaynu beerta xorriyadda la tagno xamaasadaan caadi ahayn baad haysaa dadkii baa ka aamusi weydeen hawlawradu baa ka aamusi weydeen liajli dadka kalgacal baa wada haya waanu idinka qabtiri doonaa insha Allah bada halkii qoraalku waxay u taagan tahay inay dareenka dadka ka turjunto tababarkana waxa loo qabtay inuu qofku dareenkiisa soo saaro wuxuu tababarku ka koobnaa qoraal suugaan iyo farshaxan tababarkaas waxa loo qabanaya waxay ahayd qofku dareenkiisa haday kalgacal tahay haday xanaaq tahay haday calool xumo wahaya tahay haday calool wanaag tahay inuu dabada u soo saari karo ama qoraal ugu soo saari karo ama sida hal abuurada u soo saari karo ama uu farshaxan ku sawiri karo ma jeclinayno waqti badan qaadano waayo waxay noo maqanayaan qoladii qaacigi dareenkiinu xaq kale u jira waxaan jeclahay inaan mawliidna ku soo dhaweeyo isagoo afkii macallimiinta nooga hadli doono insha Allah si aynu barnaamijkeena degdeg ugu dhameysano in ardaydana shahaadooyinkooda u guddoonsino insha Allah mawliid aadan biix halabuur بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله dadka goobta jooga ee la maagan yahay in wax loo gudbiyo ayagaa isku maqan si la isu dhagaysto oo wax la isugu gudbiyana waxaa muhiim ah bal in la ismaqlo oo la aamuso Soomaalidu waxa ku maamaadaa hadal ma dheera mar kale waxa jiraahdaa caana la wadaagay hadal lama wadaago mar kale waxa jiraahdaa hadal iyo hablaba ducalaan bay tarmaan waxa aanu dhamaynay tababar yar oo kooban oo isugu jiray qoraal qaraaco waa dhaqayaqaan sigayana waad mahadsan tahay macallin aad baad mahadsan tahay macallin bixinaysay farshaxanka idana way joogtay imika najma hadday joogto ay ku dhici jirto soo dhawaato najma way baxday waxa uu gudoomaysaa asmaa gudoomaysaa asmaa salama khayre waa gudoomiye ku-xigeenka baada halaburka qoraalka hal qor asmaa sacabka loo qaraaca gudoomiye way waxa leeyahay gudoomiye saddexaad ee baada halaburka qoraalka hal qor Sakariya Cabdi Maxamed miduu ku magac dheer iyo qoraalku loo qaraaca Sakariya waa qoraa reer Soomaaliland daayar waa Maxamed Xuseen سهل محمد حسين محمود علي دارات محمود علي دارات عبد الله صالح أحمد عبد الله صالح أحمد أحمد صالح ديرية أحمد صالح ديرية عبد الله عمر عبد الله إسماعيل عمر عبد الله إسماعيل حسن آل أحمد حسن آدم محمد محمد أحمد محمد محمد أحمد محمد شرماركة محمد قاحنوب شرماركة محمد قاحنوب نمعو عبد الرحمن حسن نمعو عبد الرحمن حسن سهرة عبد علمي سهرة عبد علمي يوروب علي أحمد يوروب علي أحمد أصلي أحمد سعيد أصلي أحمد سعيد نمعو حسن أحمد نمعو حسن أحمد هباء عبد الله إبراهيم هباء عبد الله إبراهيم فيساء يوسف حسن فيساء يوسف حسن حاجة كسورية تجري فيساء يوسف حسن
فرح حسن أحمد فرح حسن أحمد نجمة عبد الولي محمد رملة إسماعيل حسن رملة إسماعيل حسن أمون محمد آدم أمون محمد آدم هبو محمد أحمد هبو محمد أحمد أسماء صليبان خيره أسماء صليبان خيره موليد متان إسماعيل موليد متان إسماعيل آدم ديق محمود أحمد موليد محمد حسين عبد الكريم عبد الله علمي عبد الكريم عبد الله علمي عبد الله سعيد يوسف عبد الله سعيد يوسف أحمد محمد أحمد محمد إسماعيل جامع صلاة ناصر محمد إبراهيم مبارك عبد الله ورسمه أرضينا خاربان أنا يريد وسيل ثانية هذا حاجة نصر هنا waxay dhameystaan ardaydaasi cudoonida suugaanta iyo farshaxanka waxay qaateen tababar ku saabsan qoraalka ama qoraalka sida wax loo qoro sida wax loo curiyo suugaanta iyo farshaxanka in yar shan mir baan ka raalahaanayna tababaro kale oo badan aan qaban doono معلم قرآن محمد حرس الجلاد بقدوميا ونصنتهاي وردي كلا بحالي ديكي برنامج كيني أدبت مع ستين دقيسكينا وعن شعرهم رجينا هنا صافي عن إيه مكانو دقيسنا سنة دوسي دقيسان دانتا سوغان qoraalka suugaanta farshaxanka hal-abuurka kale iyo dhammaan bacidii hawlaha ku hawlan insha Allah kol tababar loo qabtay kol badhig loo qabto labadaba mar labaad waxaan idinku soo celinayaa kumaan idinku soo celiyaa ya hal isbaa la dalbaday ya salaam sacabka lagu soo dhaweeyay Cabdiraxmaan hal waaga yarais dhageysanaa danyar هذا البديد سيكلي ما يوم ما سدي حكتبان قليا ما سدا وحلا هذا عويسكي صباح ما له لما هالكاسة واحد يقول يوديني والعاوة جمعه ضد بيس سوتشي تبي هذا الوقت مركب حسوسين استيتشيد قاعد دينا وإذا تشوف لقطونا سمسها كل وانا فرحدوا تسوي كينا جمعوا كل كينا تعال ولا بدين عويس سبب ديقما وقاب شيكو كلوت قاب شيكو كلوت هلا وانا دليرا هبين كاش معاه قبل سجية وحلا لي جميع وحكله وحصل صعوتا وقرد يدولك هذا كل شيء كله يصير عاوق تلقون شلون سير سيلون شوف يصير تلقون مدرس كذي وندها شلون سير ياي تذكر هذا السنان هي صوبان وحنا نقول سرين وجو هذا سيلون ستبع عشقنا ويسوح يصير هذا المغلق كسبان دعدي قلبي سمان يا ريسبنان لقى هلا سحنان يا وذا السمان هذه قاعدتي شعيل أنسينا بكسر الجورين بعد يقول صورتيو هبين صوع عبان نفتك بكسرتين عرك السراويك قال صورة مركز سور كأنه حدقها الله صوري دنيا ذا السراء هبين لقوا سعوديو وأحسن طيحة عرك السراويك قال صورة كل كاسور كأنه حدقها الله صوري دنيا ذا السراء
oo ah sida dayaxa nimankan caawa horta aan idin haya cirkay ku talaalayeen cirka caawa caweyska cirkaa la dhaca caweyska kii kalena wuxuu lahaa taswiirtaadaan dayaxa jeclaystay inaad u sugo kanna wuxuu kule cirka sare u eeg bal suuree kolkaas sawirkeenna oo xidigaha la suray kanina wuxuu haddaan suli lahaa inaad wax ka baqday nimankan xidigaha wax laga sidii iyagaa sheegi doona laakiin halkan nin baan idinku haya la idhaahda jannagale wuxuu yidhi haaf baastaa baan isri dalbabu waxaan doonay dartaa inaan haas baastaa kuu dalbado waxaan ka cabsaday dartaa kuwa aragoga xona inay nagu cawriyaan buuri aan soo dhawaada jannagale heestana ku soo dhawaada aad iyo aad هذه الشيء ولا يوجد تبعتها نيكي باي مركا يسوي بالقبر اللي كم وقته ده ترى حكون والقبر ده حكون على قبر ده حكون على ما عايز يروح تبدا ما قيمها بدا ما نقول وين نقول كفقره دكتور عقل ولا مريسو marka waxa qorshaystay ama nafteedu tiro waxa ku qortaa meel ka qiimo badan oo waxa ku qoran qalbiga waxa uga baahan tahay teetana gabadhii way ku qanacday jawaabtii waa inta odhanaysa heesta daway magacaaga bilan dhulkaan damcay inaan ku qoro cirkiya samadaan ku dayay ku daawac markaan sila daruur qarisaa ka baq heestu iyadoo dhammaystiran baynu akhriyey waxay ka bilaabmaysaa daway magacaaga bilan dhulkaan damcay inaan ku qoro daad soo rogmadaan isiri badweynta intuu ku daro roob soo daaya baa tirtiri cirkiyo samadaan ku dayey ku daabac markaan isiri daruur qarisaan ka baqay taswiirtaadaan dayaxa jeclaystay inaan dul sudho waxaan ka cabsaday dartaa inay xidiguhu damaan xubnaha doonistooda iyo dareenka boggayga yaal dibnaha xaday baa ku yidhaahdaan dadka kuu jeclaa garaaca diglee wadnuhu ka xeel fog durbaan la tumay dabuubta wuxuu ku yidhi ku doortayahay cidlay indhaha deerada u eeg ciridka dugulkee madow timaha wacanee dushiya ka daadegay labada garab midabka dahabkee wejiga indhuhu ku daraandaraan dooqayga markaan sawiray degmayo adigu noqdee xilbaa dumadaada sudan taydana hoo ii daryee riyadu waa dadabgalkee dhankaaga dulqaad lahow dastuurka jacaylka raac wixii dumin kara ka dhow dulsaarka uga furfuraa kalsoonida ugu dada